ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa jab xoogan gaarsiiyay maleeshiyaad ka tirsan argixisada Al-Shabaab oo isku dayay inay weerar ku soo qaadaan deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidanka oo ka feejigan dhagarta argagixisada ayaa fashiliyay qorshihii cadowga waxaana ay gaarsiiyeen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ururka 143aad guutada 14 Oktoobar xoogga dalka ayaa sii baacsaday maleeshiyaadkii argagixisada ilaa 40 kiiloomitir deegaano u jira deegaanka Bariire, halkaasi oo ay ku sii baacsanayeen maleeshiyaadkii baxsadka ahaa. Taliyaha ururka 143aad guutada 14 Oktoobar xoogga dalka Dhamme Axmed Xasan Siyaad ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay in ciidanka xoogga dalka Al-Shabaab ay ka dileen 16 maleeshiyaad ah iyo dhaawac gaaraya 20 kale. Wuxuuna hoosta ka xariiqay in ciidanka ay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan maleeshiyaadka naflacaariga ee baxsadka ah. Howlgalladaasi oo uu sheegay in ay ka wadaan deegaano hoos yimaada degmada Awdheegle, kuwaasi oo dhowr jiho ka kala xiga deegaanka Bariire oo hoos taga degmadaasi Awdheegle iyo deegaano kale oo gobolkaasi Shabeellaha Hoose ka tirsan.